ugu horreyn horta waa kaaga mahadcelinayaa fursaddan aad siiseen marka xiga ururka haweenka suxufiyiinta Soomaaliyeed marka magaceeda loo soo gaabin loo yaqaan Somali Media Women Association waxaa la aasaasay 2006 waxaana lagu aasaasay magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Baay waxaana ka howlgali jiray gobolada Baay, Bakool, Gedo iyo Shabeellooyinka ujeedooyinka xilligaas loo aasaasay wuxuu ahaa iyadoo markaas tirada gabdhaha suxufiyiinta ay aad u yaraayeen magaalada Baydhabo oo markaas xarunta gobolka Baay ay tahay ilaa hadaba tirada gabdhaha markaas waxay wax ka yeeshan gabdhood ay ahaayeen maantana gabdhaha oo ka howlgala Baydhabo gudaheedii 10 gabdhood kor u dhaafayaan suxufiyiina Bakool xilligaas kamaysan jirin wax gabar ah ka soo howlgasho maanta gabdha ayaa joogo tirada gabdhaha ee gobolada Gedo iyo Shabeellooyinkana hadda way sii kordheen marka loo fiiriyo tiradii markii xilligaasi in ka badan 50 gabdhood ayaa xilligan aan ku qiyaasaynaa diiwaangelinta aan sameynay intaas gabdhood ayaa hadda haysanaa taasi horta waa wax lagu faano waa wax lagu farxo laakiin waxa jirta baahi ah in gabdhaha awoodooda xirfadeed ay ku shaqeynayaan ayaa u baahan in kor loo qaado waxay u baahan yihiin in la dhiirigeliyo lana tuso in ay awood ay leeyihiin wax ay qaban karaan ujeedooyinka aan hadda horta waxaan wadanka ku soo laabtay sanadkii hore bartamihiisii si ay ugu kuuragalo xaaladaha gabdhaha suxufiyiinta guud ahaan Soomaaliya ka shaqeynaya gabdhaha waxaa jira dhowr urur gabdhood oo aasaasmay gobolada ka aasaasmay gaar ahaan caasimadda Soomaaliya Muqdisho kuwaas oo naftirkooda u baahan in dhiirigelin la siiyo looguna mahadceliyo siday ugu dhiiradeen in ay sameeyaan ururaha haweenka xuquuqda gabdhaha iyo skillskooda kor loogu qaado ayaga naftirkooda waxay mudan yihiin in loo mahadceliyo laakiin waxa moodaa wali in ay baahiyahaasi ay taagan yihiin loo baahan yahay gabdhaha hadda shaqeynaya oo howlaha wado oo iskooda isu xilqaamay inaan isu tagno si ay markaasi baahida weyn ay jirto in loo daboolo gabdhaha waxay u baahan yihiin waxaad moodaa meelaha warbaahinadu gabdhaha ay ka shaqeeyaan inaanan la siinaynin jaanisi ah inay wax noqdaan waxaan rabnaa in aan helno gabdho hogaamiyayaal ah gabdho waxaan u baahanahay program editor ah tafatiriyaal ah agaasimiyaal ah sidoo kale waxaan u baahanahay xataa inaan helno gabdho warbaahinta kale media owners ah inaan helno ayaa u baahanahay si taasi loo helo waa in la helaa gabdho u dhabar adeega si dreamkaas riyadaasi loo rumeeyo waxaan jeclahay in kala daadsanaan badan ayaa ii muuqato in kala daadsanaantaasi laga gudbo in gabdhaha isu yimaadaan si danaheena guud loo hirgeliyo waxaan go'aansaday in aniga intii dhowrkii 10 sano aan wadanka ka maqnaa wixii aan soo zaa'idaystay aqoon iyo xirfad ah iyo waayo aragnimaha ayaan rabaa inaan gabdhahaygii walaalahayga suxufiyiinta ah jiilka hadda soo korayo inaan uga faa'iideeyo inta la nool yahay wax yar waa ma rabo inaan aqoontaydii waxa aniga Ilaahay baray inaan ka dhinto waxaan rabaa inaan gabdhaha jiilka soo igu xigo inaan u gudbiyo si hadhowdii dhaxal wixii ay u noqdaan si loo helo gabdho talented ah oo aqoontoodii ay furan tahay maskaxdoodii ay furan tahay kalsooni nafsadoodii ay ku qabaan gabdhaha waxa ka maqan kalsooni ayaa ka maqan oo ah waxay aaminsan yihiin markasta baraga inay naga horeeyaan inay naga aqoon badan yihiin inay naga karti badan yihiin xaqiiqda taasi dhab ma ahan gabdhaha waxaan aaminsanahay oo xaqiiqo ah in ay leeyihiin karti marka loo eego wax qabasho rag iyo dumarka gabdhaha ayaa wax qaban kara sida dumarka guryaha ay u hooshey ugu hayaan haddii dibadda ay u soo baxaan sidaas si ka wanaagsan ayay hooshooda u qabsan karaan marka ujeedooyinka aan dib ugu soo laabtay ayaa wax taasi ayaa ka mid ah in gabdhaha midoobaan in gabdhaha ay noqdaan gabdho hogaamiyayaal ah wax qaban kara waxaan rabaa in ragga waxa jiro ururo warbaahinada tiro badan ayaa ka jira Soomaaliya mana jirto xubno oo wax ku ool ah oo gabdhaha la siiyay ma jirto wiilasha ayaga isku soo koobay taasina cadaaladna ma ahan xaqna ma ahan mana yeeli doono mana ka qaadan karno waayo waxa aaminsanahay hawsha adiga qabanaysa mid lamid ah inaan qaban karo gabdhayaal waxa haysanaa hadda kaameramaan skillski waa haysanaa marka aqoonteeni waxa u baahanahay in lagu tixgeliyo in waxa anaga awood u leenahay in la siiyo lagu tixgeliyo ayaan rabaa in taasi la hirgeliyo haddii gabdhaha la tayeeyo aqoontooda la tayeeyo way ka soo bixi karaan sida aan hadda kaaga dhawaajiyay marka aniga aan saxaafadda magaalada Baydhabo aan ka bilaabayay wax dumar ah
oo reporter ah oo war gobol soo hadlo Maryan Seelacdi Cabdiblaayo bay dhaba dhaho aniga ayaa ka jiro guud ahaan waana officially waxa ahay gabadha kaliya ee reporter ka soo noqotay magaalada Baydhabo dhowr gabdhood ayaa iiga horeeyay laakiin waxay ahaayeen gabdho ka shaqeeya gudaha warbaahinta oo kaliya banaanka ma soo aadi jirin reporter ma soo qaban jirin wareysiyo ma soo qaadi jirin waxa ahay gabadha kaliya ee sameysay sidaas marka waxaan aaminsanahay tiro waxba ma soo kordhinayso inkastoo aan u baahanahay marka cod ay timaado inaan helno tiro gabdhaha 12 sano ka hor tiradii gabdhaha ay ku jireen ee saxaafadda maanta way ka badan tahay tiro fiican ayaan haysanaa haddayna hore u sii socono waxaan aaminsanahay tiro intaa ka badan inaan helno waliba iyadoo tayeysan waxaan jeclahay tiradeena inay soo socoto gabdhaha aniga ka mid ah oo gudaha ka shaqeynaya Soomaaliya inta duruufihii adkaa ee amniga darteeda ayaa wadanka aniga kaga cararay wali wax 100% la yiraahdo wadanka kama jiro haddana waxa xaqiiqsaday in loo baahan yahay qof waliyo Soomaaliya kaalintiisi inay banaan tahay waxaan u soo laabtay inaan kaalinteedii buuxiyo waxaan ka codsanayaa gabdhaha saxafiyiinta gabdho waxa jiro aqoon leh gabdho waxa jiro urug cadaaya ah oo hadda wali aanan wadanka cagta soo dhigin hal mar waxaan ka codsanayaa inay soo tijaabiyaan wadanka ku soo laabtaan waa hubaal aniga shalay markaa imaanayay anigoo baqaaya ayaan imid maantana iyadoo sanadna ka soo wareegan waa kan anigii soo laabtay taasi marka waxay ku cadeynaysaa first step markaas is the hardest talaabada ugu horeysa aad qaadaysa ayaa adag inay soo tijaabiyaan wadanka yimaadaan kaalintoodii way banaan tahay waxa laga sugayo waa iyaga kaliya inay buuxiyaan haddii iyaga aysan buuxinin cid u buuxinaysa ma lahan gabdhaha marka waxaan kula talinayaa inay soo laabtaan inay wadankoodii ugu soo laabtaan dhabar adeeg ay sameeyaan dhabar adeeg ayaan rabaa inaan sameeyo aniga ka Maryan Seelac ahaan waxaan rabaa haddaan berito Ilaahay teedi keeno inaan wadankayga aga tago wixii Ilaahay aniga ay baray iyo booddeedii inaan ogaga tago ayaan rabaa